bal inaad tagno Addis Ababa ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya warbaahinta Itoobiya waraysi wuxuu sheegay Itoobiya in lagu soo duulay dadka Itoobiyaanku ay imtixaan marayaan adkaysi loo baahan yahay meeqa sano buu leeyahay Abiy Ahmed shacabka Itoobiya adkaystaan sidoo ma san tahay dowladda Itoobiya dhibaatada ku jirta aad u tiro badan tahay laakiin shacabka adkaystaan waqti adkaysan jireen waa soo dhaafeen sababtoo shacabkan dhibaato badan ku socoto barakac dhibaato burbur duqayn ay nooca ku socdo abaar iyo maxaa la dhahaa dhulgo iyo waxaan la aqoonaa shacabka Itoobiya ay markaas wajahayaan ayadoo saas ay jirto haddana Abiy Ahmed wuxuu ku leeyahay hala dul qaato Itoobiya andinayda noqon doontaa hal meel oo wada socotaa wadanku horumari doonaa maxaa la yidhahdaa namba baleedka ama taargada wax loo yaqaano waa la bedelay oo waxaa laga dhigayaa hal taargo dalka Itoobiya oo dhan waxaa kaloo la bedelayaa nidaamka maxaa la yidhahdaa leysan qaadashada ayadana waa la midaynayaa dalka Itoobiya oo dhan hal mid laga dhigayaa marka arrintaasi waa arrin khiyaano ah oo dowladda Itoobiya ay doonayso inay ku qaadato dalka Itoobiya waliba Abiy Ahmed iyo oromadiisa ayaa rabaan in Itoobiya dhan la wareegaan taasna waa khiyaano iyo shirqoolo aad u weyn oo Abiy Ahmed maleegay iyo saraakiisha kula sugan madaxtooyadiisa waxay sheegeen in 4 milyan oo Oromo la tababaray oo tababarna qayb u socdo qaybna la diyaariyay oo ciidana 4 milyan ay markaas qabsan doonaan gobolka Amxaarada gobolka maxalliga Tigreega Soomaalida dhulka ee dowlad deegaanka meesha Canfarta meesha la yiraahdo ayagana Eritrea inay qabsan doonaan Seylac ee Lugaya Soomaaliya in laga qabsan doono Somaliland dhulkeeda la qabsan doono kulli dhulkaas dhul Oromo u noqon doono qorshahaas mustaqbalka la ciyaaraya Abiy Ahmed ilaa 76 sano ka gaar inuu joogo raba dalka 76 sano ka gaaray inuu dalka Itoobiya joogo boqortooyo si xukumo Oromada boqortooyo laga dhigaa la rabaa waan gartay marka nin ay hoola isku dhafsanay wax isku aadisanay sabab isku garaacaya sabab waaweyn isku garaacanaya ilaa marka nin hawshaas ku jiro oo fikirkaas iyo maskaxdaas lagu madadaalinayo oo leeyahay adaa saxsan Itoobiya suma keenay dhibaato keenaya dagaal oo keenaya kala qubo keenaya wala kala socda meesha ku dambayso arki doona xogaga caafimaadkuna gooni waxay wadeen dibadbaxyo maalmihii ugu dambeeyay oo ay maaragtay ay kaga cabanayeen mushaar la'aanta iyo dhaqaalaha dalka iyo sicir bararka cilka galay maalintii saddexaad bayna dibadbaxyadu ka soconayaan Addis Ababa iyo deegaano kale xataa deegaanka Soomaalida meelo waxaa jira xogaga caafimaad way cabsanayeen kulli intay qols ku soo xidheen ayagoo qaba marihii cadcada iyo isa soo sawireen oo ay leeyihiin anaguna waxaan la dareenahay dadka dibadbaxaya ka cabanaya mushaar la'aanta iyo xuquuq la'aanta xogaga caafimaadka ee dalkaas Itoobiya ma la dhihi karaa hadday isbitaaladina xidhmaan ganacsigiina xidhmo abide muxuu maamuliba horta dhaqaale la'aan ka jirta dalka Itoobiya waxaan arkaa in dhakhtar dorad maalin dorad in dhakhtar ooynay wuxuu leeyahay gaajaan la ooynay aniga dhakhtarna waa ahay wax daweyna waa dalka Itoobiya ku sugan waxaan la ooynay wiir baahi nolosheedu waxaan cunaan la sababtoo mushaar ma qaato oo mushaarkii bulooyinka lama qaado Abiy Ahmed dowladda Itoobiya waxa way hoos u socota dhaqaale la'aan soo wajahday marka nin dhakhtar ah ee dadka daweeyo hadoo dhaqaale la'aan noqday oo maanta baahi ka sheeganayo la ooynay waxay kula tahay in dad kale soo noqon kara kuwi kala dawaa hore dadkaas baabeenba wax dan laga leeyahay malaha marka 120 milyan nin isku hayn kara ee dhaqaalaheeda markana kor u soo kobcin kara oo maxaa dadkaas ka warqabi kara oo dadka u naxariisanayo oo dadka wax u qabanaya meesha ka muuqdo Amxaarana waxa way dhowr boqol oo qofood laga dilaa marka isbuuc la joogo baraqtar TB2 iyo TB uma dul marta lagu garaaca Tigreegana waa laga baqay mooga iyaga naftooda lagu garaaci lahaa oo Tigreega Eritreanka isku dhaxmilmeen taas laga baqay markii aan dhibaato badan keento meelaha kale tan Soomaalida iyo dadkan kalena waa la iska gowsadaa maalintii wixii raba laga dilaa marka waxa way qof markaas ka naxayso ma jirto dalka Itoobiyana qaabku hadda ku socdo sanooyinka soo socdo ku socdo fashil noqonaysa oo loo kala tagaa dhibaato ka dhacayso burburka iyo dhaqaale la'aan dhacayo qolo walba waxa way isku wadanka dariska leh ay isku dhiibi doontaa hada qaxootiga la noqonaa dowladda Itoobiya 120 milyan inay qaxooti noqon doonaan oo badan tahay wadamada Afrika kala yaaci doonaan hada waxa aragtaa Oromo wadamada Afrika ku yaacay Sacuudiga meel kasta ku yaacay iska socdo naftigooda gaajada hayso oo maxaa wadankii ayagoo madaxweyne baalkii wasaare ka hadana dhaqaale yadana dabshidan hadaba shidan dad waxa ma haystaanba dhaqaale la'aan ku dhacday marka Itoobiya sida aan u joogo Abiy Ahmed intuu joogo isku ma hayn karo horumarna lagama sugayo saan isla aad iyo aad buu mahadsan yahay gooni khiyaaray sidoo kale xogaga TPLF ayaa dharaaqay ciidan oo aad u balaaran wada waxayna ka hadleen heshiisyo ay la galeen dalalka ay xiriirka wanaagsan ay la leeyihiin arrintaas oo dowladda Itoobiya walaac badan ku abuurtay ciidanka TDF-ta ayaana dharaaqay xooggan ka wada deegaano badan oo gobolka Amxaarada ah iyo dhanka Canfarta
waana midda ay ku doonayaan inay dagaal iyo furmo horle ay ku furaan dowladda abiy axmed oo ay doonayaan si weyn inay fashiliyaan. Dhanka iyo deegaanka soomaalida haddaan tagna madaxweynaha deegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar ayaa amar buuxa ku siiyey hay-adaha amniga ee dowlad deegaanka soomaalida in la qaado kaylaayada ama jagboyntiyada yaalla dhulka aadka u badan ee 11 gobol ee dowlad deegaanka soomaalida. Deegaanka soomaalida ayaa noqday meesha ugu jagboyntiga badan ama isbaarooyinka ay yaalaan ee ciidanka deegaanka soomaalida ay baaritaanka ku sameeyaan gaadiidka, isagoo madaxweynuhu sheegay meelaha muhiimka ah ee amniga quseeya waxaan ka ahayn in aan la dhigi karin jagboynti inta u dhaxaysa. tusaale ahaan wuxuu soo qaatay madaxweynuhu goday iyo inta u dhaxaysa buri jigjiga waa ammaan laami caadi ah ay gaadiidku maraa, waa ugu yaraan 700 kilomitir ku dhowaad waaye. marka meeshaasoo kale hay-adaha amnigu jidka dhan way taagan yihiin, laakiin jagboynta dad lagu baadho oo meeshaas dhaqaale lagaga urursado ma dhici karta bil madaxweynuhu. amar buuna ku siiyey guddoomiyayaasha 11 gobol wax ammaanka quseeya waxaan ka ahaynoo jagboynta inaan la samayn karin. shacabka deegaanka soomaalida ayaa arrintaasi si weyn ula riyaaqay, si weynna u soo dhoweeyey, sheegayna arrintaasi in mar horeba loo baahnaa, iyadoo arrintani lagu sheegay inay dad gaar ah ay ku shaqaysanayeen ama dhaqaale badan ay kaga samayn jireen. sidoo kale mucaaradka deegaanka soomaalida ayaa sheegay in madaxweynaha deegaanka soomaalidu uuna ogolayn dad ka aragti duwan inay ku noolaadaan deegaanka, una qaaday waddadii cabdiilay ee gebi ahaanba ahayd mucaarad iyo cid kastaba deegaanka ha laga saaro oo keligii meesha ha ku dhaanteeyo. mucaaradka ayaa sheegay mustafa inay u sheegayaan inay deegaankana la leeyihiin, dalkana la leeyihiin, mucaaradna ay ahaanayaan kana aragti duwanaanayaan, deegaankana ay kula noolaanayaan, hadduu xidhayo iyo hadduu weerarina ay diyaar u yihiin. waana mustafad moodid inuu wajahaya hadda gebi ahaanba gabagabadii xilkiisa, gadood iyo weerar mana ka soo hadhay iyo dad la dilo iyo dad xabsi maaragtaye lagu caburiyo. xaalka deegaanka ayaana u muuqdaa mid marba marka ka dambaysa dhanka dirirta usii durkayo. allaha sahla ayaan leenahay. sidoo kale guddiga doorashooyinka ee dalkaasi etoobiya ayaa ururkii onlf si weyn u farageliyey, waxayna sheegeen maaday 3 bilood oo shaqo joojinayna ku sameeyeen, ayagoo ku soo eedeeyey in uu dalka ka maqan yahay muddo dheer, uuna gebi ahaanba shaqadiisii iyo inuu ururkii dib u mideeyo uu ka gaabiyey. waxayna sheegeen in maaday inta ay doorasho ka dhacayso inuuna magaca guddoomiye ku shaqayn karin, xoogagii shirayna ay doorasho 3 bilood gudahood ku qabtaan, guddoomiye sharci ah oo guddiga doorashooyinku ay qoonsadaanna ay soo doortaan. maamulka deegaanka ayaana arrintaas si weyn uga shaqaynaya, oo xubno madaxtooyada dowlad deegaanka ayaa maalmihii ugu dambeeyeyba si weyn u daba wareegayey guddiga komishinka doorashooyinka oo barnaamijkan ka shaqaynaya. waana tii dowladdu ay qabatay doorashadii ururka onlf, waa qaybtii dhanka bidix u janjeedhay.